waxaan jeclaan lahaa runtii maanta inaan ka hadlo hadal shalay ka soo yeedhay gudoomiyaha gobolka Awdal Mr. Ramax isagoo madaxtooyada jooga oo eedaymay soo mariyay hawada taasi runtii waxay tusaysay shacbiga Soomaaliland dulqaadyarida xukuumadda Galmudug iyo madaxweyne Siiraanyo iyo salfadeedka ay xukuumaddaasi caan ku tahay inuu Mr. Ramax isagoo martiya oo madaxtooyada dhex jooga uu sugi kari waayay xafiiskiisa imanayo runtii dulqaadyari iyo salfadeed xukuumaddani ku caan baxday u turjumaysa shacbiga Soomaaliland marwada waxaan oran lahaa gudoomiye Ramax waa hasha geela cunta ee haddana cabaada wuxuu hilmaansan yahay gudoomiye Ramax inuu yahay mas'uul qaran mas'uul gobol tilmaan iyo dhaliila una waayeen ugu horeyn waxaan ka raali gelinayaa shacbiga xariirta ee goobta ee ku dhaqan degmada Baki ee gobolka Awdal hadalkii meel ka dhaca ahaa ee deelqaafka ahaa ee aan loo meel dayin ee uu barasaabka gobolka Awdal hawada u soo mariyay ee uu yiri martisoor male dadka ku dhaqan degmada Baki aan qadadeeda iska bixiya waxaan leeyahay aad iyo aad baan xaal uga siinayaa dadka ku dhaqan degmada Baki hadalka meel ka dhaca ee aan qaban waxaan leeyahay gudoomiye Ramax halkani waa halka Shiinaha u soo kireysateen si aad dhaqaale uga heshaan adiga xukuumadda aad ka tirsan tahayba marka maaha meel qado loo soo qaato degmada Baki waxa kale oo leeyahay Ramax malaha waanad ogeeyne degmada Baki waa degmada ugu barwaaqada badan Soomaaliland waxay leedahay degmada Baki dhul beereedka ugu khayraadka badan Soomaaliland waxay leedahay macdanaha ugu badan Soomaaliland waa degmada ay ku yeelaan buuraha ugu qaalisan ee macdanta ugu badan ee Soomaaliland ilaa imika inta looga hay ku duugan tahay waa degmada ay ku taala buurta caanka noqotay ee xukuumadda madaxweyne Siinaanyo ay u soo kireysatay shirkadaha waaweyn ee Shiinaha ee Siimoodi waa degmo leh dhul beereedyo aad iyo aad u ballaaran waa degmo leh durdurro anguringu iyo jiilal marka gudoomiye Ramax hadalkaasi oo u meel dayin oo ku duray degmada Baki waan ka raali gelinayna xaal lama ka siinana waxaana weeyaan meel khadicii labaad ee inta uu gobolka ka yahay barasaabka oo aan sanad gaareen uu degmada Baki u marayay hawada waxa tan ka horeeyay hadalkan ka cuslaa ka naxdin iyo dhiilaba badnaa kana dhibaato badnaa oo gudoomiye Ramax u soo jeediyay dadweynaha ku dhaqan degmada Baki oo ahaa inay tahay saldhig argagixiso degmada Baki taasina waxaan leenahay tii oo taagan oo nabadgelyadii gobolka uu isagu ka yahay mas'uulka oo nabadgelyada darro u soo jiidayo malaha barasaab Ramax waxaan ku tilmaami lahaa ninkii juxa ee geedka laantii isagu uu saarnaa gudinta ku goynay gobolkan malaha ma oga isagu inuu ka yahay barasaab waxa kale leeyahay gudoomiye Ramax saaxiib hadad dhaliisha iyo tilmaanta diidayso oo aad soo uga cabaadayso xilka qaranka banee markaas aad nabadgeliye intaad si xilka qaranka hayso tusmeyn iyo tilmaan naga waaymaysid Soomaalidu waxay tiraahdaa nin xil qaaday eed qaad haddana soo daadego hadalku shalay barasaab Ramax ka lahaa warbaahinta barasaab Ramax muddada gobolka joogay sanadka ka yar musuq baahsan buu runtii kula kacay gobolka Awdal waxaana la yiri meed maxaa u dambeeyay ka la siisido haddaan wax ka iftiimiyo musuqyadii ballaarnaa oo barasaab Ramax kula kacay gobolka Awdal intuu barasaabka ka ahaa in yaro hoga tusaaleyn aan ka soo qaato waxa kamid ahayd muddadii barasaab gobolka yimiday barasaab Ramax wuxuu maayarkan ka horeeyay oo si gaari Langurusala markuu gaarigii maayarkiisii markuu gaari aan GT ahayn oo lambarkiisu cadaan yahay gaarigii markuu maayarkii ka dhacay xilka maayarkii kale siiyay maayarkii kale markaa ku yiri waa inaad bixisaa qadar lacageed oo dhan $18,000 oo gaarigan lacagtiisu tahay maayarka xilliga oo gaariga ku wareejiyay waxa ahayd muddaan ka badnayn 5 bilood ka hor dadka baabuurta yaqaanay aad iyo aad bay garan doonaan lambarka gaarigaasi wuxuu ahaa $55,000 wuxuuna ka siiyay $18,000 waqtigaasina lambarkaasi lambar la soo dhaafay buu ahaa Somaliland waa laga wada dhareegsan yahay Langurus $18,000 la siiyay inaanu jirin oo beeliya oo sakana waliba taasina waxa laga saaray lacagtaasi qasnadii dawladda hoose oo aan runtii qorshaha ugu jirin miisaaniyad sanadeedkii 2015 barasaab Ramax gaariga meel alla meel ka keenay lama garanaynin meel ahayn buuqii gaarigaasi la kala wareejinta lama sameyn wuxuu ku khasbay maayarka gaarigaasi inuu $18,000 qasnada dawladda uga saaro lacagtiina barasaab Ramax saas ku qaatay gaariga Langurus $18,000 siinay 55 lambarkiisu yahayna Somaliland meesha laga siiyo waxaan u deyn doonaa shacbiga waxa kale tusaale soo qaadanaya gaari shaawala oo iska rogadan amuda ku gurta iska rogooyinka cagaftan iska rogooyinka ku gurta amuda oo dawladda hoose barasaab Ramax keenay muddo dhaweyd
markuu keenay barasaab Ramax iska rogada wuxuu sheegay golaha deegaanka iyo maayarkaba inay tahay deeq uga timid madaxtooyada Somaliland runtii deeqdaasi ay dawladda hoose la wareegtay ee madaxtooyada uga timid ee barasaab Ramax uu sheegay muddo yar ka bacdi wuxuu hadana u sheegay inuu lacagtaasi la leeyahay oo deyn ay tahay oo uu ka soo qaaday macradku yaala Hargeysa gaariga dawladda hoose ay u baahnayd ma ahayn shaawal ee waxa ka tarabilar tan cagaftan cifiyada aynu naqaano ee xagga dambana ciidiyaha kula xagga horena wax ku qaada ee weyn ee culus maalin dhaweydo la dhisay guriga martida Boorama way ku jabtay bahasha cagaftaasi qiimaha lacagta uu barasaab Ramax soo siiyayna waxay ahayd lacag hor dhaafaysa $51,000 qiimaheega saxda Hargeysa bahashaas ay ku taalayna markaan la xiriirnay macradada Hargeysa ku yaala waxaana loo sheegay $30,000 $20,000 ee halku meeriye barasaab Ramax isaga sheegi doona waxa kale oo jeclaan lahayn aan ka hadlo oo aan u sheego shacbiga ku dhaqan gobolka Awdal barasaab Ramax wuxuu hore barasaab uga soo noqday 3 gobol barasaabkii gobolka Saaxil barasaabkii gobolka Sanaag imikana barasaab gobolka Awdal waa barasaab tahriiba oo ka soo tahriibay bari waxay reer gaab yiraahdeen hadal dhaxal gala maalintii barasaab Ramax laga soo bedelayay gobolka Sanaag waxay yiraahdeen madaxweyne ilaahay baan kugu dhaarinay ummad islaama kana hawgeenin madaxweynihii Somaliland inoo inoo keenay barasaab Ramax malaha islaamaha dad ku dhaqan gobolka Awdal waxa kale oo barasaab Ramax leeyahay ma tihid qof madax banaan waxa tahay nin mas'uula dhaliisha dhabarkayga iyo dulqaadkayga yeelo wayna inoo bilaabantay imika wixii ka dambeeyay tooshka wal ku daba qaadanaya lagana xalimaayo intaad xilka qaranka haysana talaabo kastood qaado shacabkan u soo bandhigi doona aad iyo aad baad maasantii bahdina warbaahinta